mudane madaxweyne waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan munaasabadda 18 May awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow ilaahay waa mahad leh bisha Ramadaan barakaysan ilaahay khayrkeeda hayna siiyo dambi dhaaf iyo maqfirada hayna siiyo wixii islaam ay naga horeeyay dhintaan Allahu naxariisto inteena nool Allah inaga daba naxariisto ilaahay waxaanu ka baryaynaa aafooyinka cudurka jira adduunka saameeyay inaga dhibta weyn nagu haya inuu ilaahay masiibadiisa inaga dul qaado in ilaahay cudurka oo sida ay dhalinyaradu u sheegaan safar nooga dhiga safar maaha waa aafe in ilaahay safar nooga dhigo oo ilaahay noo fududeeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa khayr oo dhan ilaahay waxaanu ka magangalay balaayo dhan duca kadib walaalayaal maanta waa bishii May waa maalintii qarannimada waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga Somaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Somaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ay kala duwan dhammaantood meelay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Somaliland iyo madax raqameedkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaqo 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qarannimada Somaliland waa maalintii inagoo isku duuban oo aan cidna inaga maqnayn oo gacmaha haysanna ku heshiinay inaynu qaranka dhisno shirkii magaalada Burco 1991 go'aankii ka soo baxay in aynu xorriyadeennii kala soo noqono aynu kala baxnay qarannimadeennii midowgii aynu ku hongownay 1960 June iyo July waxaynu maanta xusaynaa 29 sannadood oo aynu wada jir wax wada qabsi dib u dhis dimuqraadiyad isku tanaasul iyo kala dambayn ku maamulanay dalkeena marxalad kasta oo marxalad kasta oo adagna aynu kaga soo gudubnay inaga oo gacmaha is haysanna waana arrin caalamku inagu majiirto lagana baran karo casharo ku saabsan guulaha aynu ku gaadhnay isku kalsoonida iyo talada inaga ka soo goday dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dawladnimo aynu ku gaadhnay walaalayaal markii lagu go'aamiyay Burco qarannimada Somaliland 1991 May waxa lagu ansixiyay afti dadweyne markii dastuurka la ansixinayay in dastuurka iyo qarannimada madaxa bannaan ay tahay lama taabtaan 2001 bishii May bulaanka iyo sawaxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee laga wada warbaahinta waxay muujinayaan bisay la'aan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiyo boor ah Somaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad iyo aad bay wax looga yaabo tahay maan gaabnimada dadka 30 sano og inaynu laba dawladood oo mid waliba gaarkeeda wax u dhisatay yahay haddana maalin walba ku soo sawira calan oo odhanaya Hargeysa iyo Somaliland iyo Burco wax u dirayna iyo Boorame taa waan ka hadli doonaa oo hadalladii hawsheeda waxaan saleeyahay taasi ma aha mid arrin lagu geli karo ee waa bulaasu iyo war suuqa socda walaal xarunkan adduunka saameeyay ee COVID-19 dalkeena aad buu u fidaya waana caadadiisa oo marka hore lama dareemo inta aanu fidin marka uu dadka gaara dadka u horeeya xarunka u soo dhacaa boolinta ayuu si xoog leh u kacaa haddana hoos u dhacaa marka waxaad moodaa maanta inuu xoog halkii ugu sarreysay marayo 100 iyo dheeraad baa laga helay waliba waxaan wali raadinaynaa inaynu helo ay tahay mashiinada lagu baaro xarunkan oo aynu helno magaalooyinka waaweyn Boorame
burco berbera cergaabo laascaarood ugu yaraan hawshoodii waa lagu jiraa kala go-a diyaaradaha iyo haddii la yidhahdo adduunyada wixii la soonay aan laisu gudbayn awgeed ayay adag tahay markii la dalbadaba inuu raago waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq balaaran u sheedinayaa guddida loo xil saaray hawshaa ka hortagga fayraska ee maamulkeeda oo shaqo wacan qabtay madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay waxaan aada ugu mahadnaqayaa maalqabeenka somalilan oo intoodii badday si deg dega si wax ku oola uga soo jawaabtay oo shalay iyo darraato labada shirkadooda waaweyne dahabshiil iyo talas loogu dambeeyeen oo ballanqaadkeed intay furiyeen ka dalbaday in lasoo dhiso lasoo sameeyo meelaha lagu sameeyo turkey china qalabka lagu baaro dadka laakiin waktiba inaga qaadanaysa xanuunkana wuxuu ina baray cashar baynu ka qaadanay haddaynu somalilan nahay haddii aynu isku tashanno inaynu adduun iyo awoodba u leenahay inaynu dalkeenna wax ka qaban karno horumarin karno kala dagaalami karnaa cadow cudurka kala dagaalami karno innaga oon gacmaha hoorsan hawshaa ku socotay maanta labada biloodaynu wadda hawsha ah badankeeda 80% waxay ahayd dhaqaale somalilan iska urursay dawlad ganacsato qof wax ku deeqa qof xoogiisa ku deeqa qof amarka qaato oo u adkaysta dhibaatada ka soo gaadhay isba dhaqaale u bixiyey qofka ganacsiga jooji ama shaqadii uu qabanayay joojiyey ee mushaaharo qaadanayay dee waa ka ugu deeq badan dalkiisa ugu deeqa wixii hayay ilaa wuxuu hayay waa mushaharad seeray dawlad ahaan xanuunkan tallaabooyin dhowr ayaa laga qaado hore loo sheegay ood ogtihiin waxaa la asaasay guddida waxaa la xidhay dhammaan goobihii waxbarashada si loo yareeyo imaatinka ardayda waxaa si kumeel gaara loo xidhay xuduudaha dalka wixii laga maarmaana mooyaane waxaa heegan la geliyey ciidamadii qalabka siday oo dhan meelay joogaanba si ay cadowgana uga diyaar garoobaan dalka haddii dhibaatadu sii balaartana wax uga qabtaan waxaa loo sameeyey goobo lagu kala tilmeeyey dhammaan socotada kasoo gelaysa xuduudada muddo 14 cishaha meel kastaa kasoo galeen waxaa hoos loo dhimay qiimaha cashuureed ee bisha rabadaan ee raashinka daruuriga ah 20%. dawladdu waxay abuurtay sanduuqa la dagaalanka COVID-19 oo ay ka codsatay dadkuna inuu soo taageero alxamdulilah maanta lacagta la hubay kusoo gaadhay waa ilaa 7 milyan iyo dheeraad dawladdu waxay abuurtay sanduuq la yidhaahdo miskiin kalkaal oo loogu urinayo qaadhaan lagu taakuleeyo dadkeenna baahan ee jilicsan ee qaadamadhalaga ahayd ee suuqii laga xidhay kaana dawladdu qaadhaankii u horreeyay dhigta 1 milyan buu ahaa ilaa 2 milyan oo kalena wax kusoo shubay maanta dadweynaha waana maqlayseen guddida ka hortagga oo daraata 650 qoys u qaybinaysay raashin oo ugu badan dadkii ay dhibaatadu gaaraysay dawladdu waxay fartay sanduuqa lagu talagalay in lagu taakuleeyo ganacsada yaryar ee uu saameeyey xanuunkan COVID-19 oo qorshaheedii iyadan lagu jiro waxa kale oo xukuumaddu ka soo iibisay beerleyda labadii sano ee roobka wanaagsan daay wixii ay beereen ee kayd hayeen in laga soo iibiyo ay dawladdu ka soo iibiso oo lagu daro gargaarka dadka la siinayo oo aan laga sugin qamadii laga keenay meel aynaan garanayo waqtiga ay imanayso wax kasta oo la dadaalay walaal xanuunku wuu sii fiday maalin walbana waxaad arkaynaa hebel oo dhintay waana aafo adduunka oo dhan maraysa waxaynu u baahanay inaynu sii xoojino la dagaalankiisa oo ah inaynu qaadano awaamirta dhakhtarrada waxaynu u baahannahay inaynu ismaqallo waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalno inaynu kala fogaano intii suurtagala maanta ku dheeraan maayo howlaha xukuumaddu sanadkan ay soo qabatay waayo bishii dhoweyto warigii February ka akhriyay labada gole ee wixii la qabtay iyo qorshada uu sheegay si guud mar haddaan taataabto amniga qaranka difaaca qaranka iyo nabadgelyada dalku waa saldhigga dawlad kasta oo jirta caalamka dawladdu waxay haybad iyo tixgelin leedahay awoodeeda ciidan iyo xuduudeeda dhaqaale ilaahay mahadi 30 sano oo la yiraahdo la ma ictiraafin oo nukeer isku tashanay 30 kaba si nabadgeliya iyo aamina ayaan u socono 30 sano cadawga Soomaaliland waa badnaa Syria caad baa u lahaa bareed iyo warwareeg iyo dhuumasho iyo sorxgal buu isku daayay ilaahay mahadi shacabkooda isku duuban iyo ciidamada qalabka sida kala duwan iyo dadkeena qaranimada ilaashanaya iyo madaxdooda oo 100% u soo jeeda qaranimada ilaalinteeda waxaan ku gaadhay 30 sano oo nabadgeliya gudaheena ah cadow dibadooda inay soo weerareen ay warigii fooda soo galin dalkeena
waxaa la xoojiyey tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka mooralka iyo cududoodaba waa markii ugu horreysay ee tababar leyli sarkaal dalkan gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayeen saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen 9% dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guud ahaan waxa iskaashi iyo amni lala sameeyey dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhammaystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida oo furan hadda la bilaabay oo adeeg hufan oo caafimaad sii doona ciidamada cadawga jamhuuriyadda Soomaaliya waa badan yahay hase yeeshee waxa uu muusgooyay shacbigiisa iyo ciidamadiisa isku duuban dhaqaalaha dalka hore uga hadlay waa badan yahay marka soo koobo dhaqaalaha dalku 15% sanadkan kordhabay ahayd waxa ilaa 10 waxa hoos u dhac badan ka imanaya cudurkan ay COVID-19 qorshihii dib miisaanada ugu sameyn lahaa ku talagalana waa lagu jiraa inta uu qaadanaya garan mayno heerka uu gaaro garan mayno waxay nagu qasaba inuu dib u eegno miisaaniyadeena iyo qorshayaasheena priority-goodii halkii koobaad markii hore ay noo ahaayeen 22 mashruuc oo ku kacaya lacag ku dhow 20 milyan oo xilbilood hore la sii daayay ahayd way hakadeen way waxa loo leexday dhinaca cudurkan COVID-19 walaalayaal waxaanu guula gaadhnay waxa dalka soo socday haddana cid waliba dhaliisheeda waa leedahay dhaliisha Soomaaliland ugu weyn ee dhaqaalaheena iyo nabadgelyada nabad dhibtay waxa weeye isku dhaca deegaamaysan ee beelaha wada deegaamada dhulkeenu way naga badan yahay dadkeenu wuu yahay dhulkeenu wuu yahay haddana waxa dhacda maalin walba beela isugu dhaca dhul la isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax la mid waxa naga dhintay 100 qof loo sano dambeeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay hadaa dagaalada raadiso oo si walba oo xadhood baadhana waxaan sagaar ka biirsan baan ku ee dadka ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaaleena ku burburin waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku haya waxa kamida isku dhaca beeraha iyo hawlgaladooda labadii sanadood u dambeeyay waxa la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonayo waxa inaga baxay dagaal beelada loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dilaayo 9 milyan oo dollar 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha laba sano u dambeeyay imse iskuul baynu dhisnahay caafimaad baynu u baahannahay biyaynu u baahannahay wax alliya waxa la isku dilayna garamis markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burburaa la oranaya walaalayaal ka heshiin oo xal dhalaa ka noqon maxay isku dilay maxay waxaan soo jeedinayaa dhammaan wax garadka media mutacallimiin sheekh shariif in dadka laga waanay dhulku waa ina deeqaayay inaan maalin walba ku dhamaan oo inaan isku gurman waxaan sagaar ka biirsan gacan baa la isku dilay barkada u leexday waxaan uga gudbayaa kaabayaasha dhaqaalaha waa qorshiyo aynu hore u soconay aynu ku soconay oo wax laga bedeli doono sanadkan waxa u badnaa in ceelal badan la qodo in jidadka dayactirkooda la badiyo lama taabo wadadii burco iyo ceero gaaba iyo dawaaseedii ta kooridoorka oo ay dhisayeen qolada carabta iyo qolada ingiriiska oo iyagu naga caawiyay inta leexashada ah iyagana maanaan taaban laakiin qorshayaashii wadooyinka wax badan waxa hakin doona ama wax ka bedeli doona xanuunkan COVID-19 waxbarashada iyo caafimaadka oo labada ugu muhiimsan labadaba waxa ku dhacay culays miisaaniyadoodii horumarineed ee macallin lahayd ee dugsi dhis lahayd waxa ku dhacday labadaba culays fara badan oo keenay cudurkan dhammaan xooggeena arrimaha bulshada waxay u leexayeen xooggoodii in lagu caawiyo wasaaradda caafimaadka oo ku jirta dagaal ay arrintu baaxad u leeyahay iskuuladii waa la xidhay cudurkana xidhay macallimiin badan oo private ah oo shaqada bishaarkooda ku ekaa inay ardayda waxa laga qaado ku socdaan waa xidhmay waa cusay kala soo kordhay oo iyadana dib u eegid miisaaniyada ay ugu jiriyay si loo xalin lahaa garsoorka waxaa soo dhibaatooyin jireen garsoorkeena ilaahay mahadi labadii sanadood u dambeeyay markii la tiriyay kiisaskii soo galay 85% ayay maxkamaddu go'aan ka gaareen warina cabasho waa jirtaa maxkamaddu way dheer yihiin maxkamadaha dheer waxa ugu wacan dadka oo marka la weydiinayo marka dacwada la galayo iyagu soo qaldaay oo korba marka go'aan la gaaraba wax cusub ka dawaaynay
gaar ahaan kuwa dhaxalka oo kale oo dhammaadkood ku adkaaday ma aha inta badan dhaliishu ka timaada garsoorayaasha garsoor waxaan soo karaa waa bini aadmi laakiin dadaal qeyr caadi muujiyeen waxaa la sameeyey maxkamadda wareegta oo fudaydisay 60% dembiyadii laga soo qaadi jiray gobolada iyo degmooyinka ee la keeni jiray caasimadda maxkamadda ayaa 24 degmo ayay maxkamadda ka furay gobolada maxkamadda wareegtaana gobol degmo kasta way tagtaa iyadoo awoodda ilaa iyo maxkamadda gobol ah marana ku racfaan xataa raacaan dowlad ahaan 2 sano u dambeeyay waxaa kor loo qaaday dakhliga ama mushaharka xaakimiinta iyo shaqaalahooda 50%. warshahana waynu sii karnaa waayo qofka xaakimka ah wuxuu u baahan yahay daryeel badan tixgelin sharaf iyo amnigiisaba in la xoojiyo taasaynu wadada helnaa insha allah oo aynu gaari doono waxaa soo dhac balaan ku yimid dacwadihii dhulka sababtoo ah dalka oo dhibaatadiisii arkay iyo maxkamadaha oo inta badan lagu xalliyo si sulxa iyagoo iska kaashanayaan dadweynaha ciidamada amniga maxkamadaha iyo culimada waxaanu rajeynayaa in dhibaatada dhulka hoos u sii dhacdo oo aynu hoos u dejino waxaanu sheegnay howlaha ay qabtaan garsoorku waxay kor u qaadeen dakhligii ay soo xiray jireen ilaa 5% waayo markay dacwada qaadaan baa waxa la socda kharashka dacwada beesha caalamka iyo dalalka ay dariska nahay Soomaaliland waxay xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tagshiga shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad dhismo ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaadaan dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo Soomaaliya waa ku celinaya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jiray 30 sano kala maqnayn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinka xamar ka heshiiya ma ka heshiin xamar cadow baa u aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka baraysan ninka qaranimada iyo diidan col baan sidaa darteed hay-adaha sibcada qurba ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo danta dhisoo nahay cid in raxaysa waa wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno gafna oo aragnaa xamar baa waxay ka dhaxayaan ka heshiis wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo go'aanka shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaan ah sida dastuurku cadaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha lagu laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala madax bannaan wada hadlay ma waxba ka dhageysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliland laba qaran oo qofkii ku dhex dhexaadinaya diyaar baanuna walaalada xamar nimanka xamar joogay aan isku Soomaaliyeedna walaalanahay hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadlaynaa intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayeerna ay kolba calan diyaarad yar oo gaaladeed ha soo sawirayaan heshiin meena wada hadlay waxaana abuuraysaa colaad hor leh iyo caro hor leh soddonkii sanadood
Somaliland iyo Soomaaliya ku midaysnaayeen dawladdii Somali Republic waxay dawladdii 1960 ilaa 1990 wada salaam baa aad garanayo oo aad waxa uu qori jiray nation oo ku saxiix jiray mustaqbalade anagoo arday aan akhri jiray oo uu og yahay xogaan u yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee 1960 ee la baxday Somali Democratic Republic ee 1990 isku dar labada soddonkaas sanado waxay sanado inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bareer loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta ay noohay waxa ka markaa soddonka aynu sirca ku jireen laba dagaal baynu galay dariska labadaba Somaliland buu dagaalka culayskiisa ku dhacay riiqday dagaalkii 77 iyo 64 Somaliland culayska ku dhacay kuma dhicin xamar iyo agteeda culayska weynaa ee dhimashada ee xoolan miisaanada dhaqaale ee cusbitaalka Hargeysa ninka joogay baa joogay wax alliya wax dumarka inan iyo sodoh iyo ayay dhamaantood cusbitaalka Hargeysa ay tagnaan dhaawac iyo culays iyo dharka meelidiisa iyo cunto karintoodii daawanteeda furantana ay ku shaqeynayeen iyo ka burco iyo ka boorame dee war kuma dhicin wuxuu dagaal gaaray wax yar bay ka hay inaga gudaheena dagaal bay nagu hayay dawladda kala dambeeyay iyo colaad kadeedka iyo taraxmada waxaynu ka baxnay 1990 oo qaran ka dhisan soddon sano kadeedna waynu joognay soddon sano waynu kala maqnay caqliga habeen walba inamada yar xamar jooga ay TV-ga ku soo dhagayaan mashruucan ka fulinay Hargeysa heer baan u diray war waa colaad horne iyo xumaan la bilaabay haddii wax caqli halka joogo cid kasta oo aaminsan laba dawlad hadalka diyaar baan u ahay iyagana hadday ta aaminsan yihiin waa wada hadlayna markay arrintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku heshiiyeen yaa wada hadlaya taa waan sheegay maxaa ku xiga ajandaha laga wada hadlaya waa laga heshiiyey ma aqbali karno go-aan ah oo inamada xawar jooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go-ahaynba aynu ka wada hadalno si cadoo dheer baan idinku sheegaya kala go mooye wax kala ku wada hadli mayno waynu kala goro waynu kala tagnay ma walaaluna mar laba dawlad darisa ma ahaan haddii kale waxaa wadaan waa heli doontaa arrinta labaad loo kala bixi karaa waxa weeye maxkamad caalami ah oo arrinteena aan soo sugaysano oo aan carab rigin waxaan kusoo koobayaa oo ilaahay ka baryayaa maanta oo cudurkan ina dul saaran inuu inaga qaado inuu inoo sahlo inuu inoo khafiifiyo masiibadiisa iyo dhibaatadiisa waxaan ku baaqayaa 18 May Somaliland inaan loo baqanayn hadday ciidan tahay iyo hadday dhaqaale tahay inuu iswadi karno xanuun kale inuu muujiyo inta isku filaan waxa la yahay hay'aduhu dowladana waxa la soo marinayaa Brussels waxa la soo marinayaa Nairobi waxa la keenayaa kan afarteena maalqabeen iyo dawladda iyo shicibkeena isku tashada oo qabtay oo maanta aan ku soconnaa hadday si adkaasna wadi doonta kalsoonidaas aan ku qabanay Somaliland soo waxaan dadka ugu bishaareynayaa in ay dhowdahay guush oo huwa dheerayn qarannimadeena iyo xoreynteena iyo madaxbannaanideena waa dhowdahay ha loo dhabar adeego in ka badan baynu ka soo gudubnay meelan ka horreeyna ma joogno inamada xawar joogana fariintaas aan diraya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh